ciidamada maamulka Jubbaland ayaa howlgallo kala duwan oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ka wada gobolka Jubbada Hoose. Wararka aynu ka heleyno gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan kuwa danaba oo iskaashanaya ee howlgallo kala duwan oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ay ka wadaan deegaanada dhaca gobolka Jubbada Hoose. wararka ayaana sheegaya in ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee isku dhinaca isla markaana ka wada howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab gobolka Jubbada Hoose ay gacanta ku dhigeen saldhigyo iyo sidoo kale fariisimo ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen halkaasi. ciidamada ayaana inta howlgalkani uu socday waxa ay ku dileen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida hadalka ay u dhigeen. bayaan ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaana lagu sheegay in ciidamada daraawiishta oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee danaba ay ka qabsadeen saldhigyo iyo xarumo dagaal oo ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab gobolka Jubbada Hoose deegaano dhaca isla markaana sidoo kale qasaare kala duwan lagu gaarsiiyay halkaasi xubnihii kooxda Al-Shabaab ka ahaa ee halkaasi ku sugnaa. waxaana la sheegay in ilaa iyo 10 qofood laga dilay kooxda Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen maamulka Jubbaland oo bayaan ka soo saaray howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya gobolka Jubbada Hoose. shalay ayay ahayd markii duqeyn ka dhacday gobolkaasi lagu dilay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyadoo sidoo kale howlgal ay ciidamada maamulka Jubbaland ee daraawiishta halkaasi ay ka sameeyeen ay maalintii shalay ahayd ku sheegeen inay ku dileen ilaa iyo 22 dagaalame oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib duqeymo dhanka cirka oo saaxiibada ka taageera Soomaaliya dhanka iyo hawada ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Hoose. howlgal xigana ay halkaasi ka fuliyeen ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland kuwaasi oo guulo weyn ka gaaray howlgalkii ay halkaasi ka fuliyeen oo ay sheegeen inay ku dileen 22 dagaalame oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab.